بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Samwade ee Radio Markabley. waa habeenimo khamiis ah jimco ay soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 28-ka bisha 11aad 2019. barnaamijka Samwade caawa waxaan ku soo qaadanaynaa kooxda shabaab dhibaatooyin ay ku hayso shacabka Soomaaliyeed kuma eka oo kaliya xasuuqa balse waxay caqabad weyn ku tahay wax soo saarka shacabka Soomaaliyeed taasi oo si toos ah u waxyeeleynaysa nolosha kuwa ka badbaada dilalka iyo qaraxyada. tusaale kooxdu waxay xireen qaar ka mid ah wadooyinka ay beeraleyda iyo xoolo dhaqatadu ku iibgeyn lahaayeen badeecooyinkooda, sidoo kale waxay ka qaadaan baad xad dhaaf ah taasi oo nolosha ka dhigtay mid aan isbixinaynin, taasi oo ku qasabtay beeraleyda iyo xoololey badan in ay awoodi waayaan in ay qotaan beerahooda ama dhaqdaan xoolaha. haddaba sidee loo arkaa dhibaatada dhaqaale ee dalka iyo dadka ay ku hayaan argagixisada shabaab? barnaamijka caawa waxaa marti iigu ah Sheekh Bishaar Sheekh Cabdi Sheekh Axmed oo ka mid ah culimada degmada Baardheere, taliyaha saldhigga degmada Baardheere Gaashaanle Cabdi Fataax Macalin Nuur, gudoomiyaha fanka iyo suugaanta degmada Baardheere Maxamed Axmed Maxamed. barnaamijka waxaa si toos ah ugala socotaan Radio Markabley FM 88.8 Baardheere, iyadoo cidda uu seego barnaamijka ay dib uga daalacan karto channelka YouTube-keena Samwade Show ama barta Facebook-ga samwade.so. inta barnaamijka uu hawada ku jiro waxaad fariimaha noogu soo diri kartaan telefoonka nambarkiisa uu yahay 0638880535. sidoo kale waxaad fariimaha noogu soo diri kartaan info@samwade.so. cidda su'aal weydiinayso mas'uuliyiinta barnaamijka caawa martida noogu ah ama fikir nagu biirinayso waxay si toos ah nooga soo wici kartaa telefoonka idaacadda Markabley 436 barnaamijka aala waxaa idiin soo jeediya anigoo Yaxya Cabdirisaaq Soofe, dhanka farsamadu waa Bishaar Ibrahim Aadan. barnaamijka Samwade caawa waxaa soo saaray Maxamed Cabdi Cali Alfa. qaybaha dambe ee barnaamijka haddii uu waqtiga noo saamaxo waxaan qadadka u furi doonaa dhageystayaasha si ay noogu biiriyaan su'aal ama fikir waxay inoo hayaan. waa mar kale iyo barnaamijkii Samwade ee Radio Markabley. ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa Maxamed Axmed Maxamed, gudoomiyaha fanka iyo suugaanta degmada Baardheere. maxamed ku soo dhawow barnaamijka Samwade ee Radio Markabley. maasantihiin dhammaan baahda warbaahinta Markabley iyo Samwadaba. aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa martiqaadka aad ugu martiqaadeen Radio Markabley. inta ka bacdi wax cad weeyday waxa nolosha bini'aadmiga ay ka bedeleen shabaabku marka laga soo tago dilitaanka. waa wax cad weeye waxa koow ka ah dadka barimageedada ah oo ay had iyo jeer hajuun iyo ay kula dhaqmaan waxa aan bini'aadantinimada ka baxsan. waa koow hantida dadka oo ay banaysteen ayagoo magac u bixinaya sida hadda waad aragtay sakaawaad waxay dhahaan qidmatul amni waxay dhahaan waxyaalo badan oo aan de waxa ayagu ay ku sheegayaan aan ahayn, laakiin ay ku sheegaan markaas in ay wax macquul dad laga qaadayo oo dadkuba ay sharci ku ah ay ugu magac bixiyeen. marka dilitaanka ay dadka leynayaan oo xasuuqa oo taas indhaha caalamka oo dhan arko waxa ka sii daran aniga saan aaminsanahay waxyaalaha kale oo gumaadka hoose oo dabiiciga ah oo dilmada ka banaan. sidoo kale waxa barnaamijka qayb igala ah oo igala qayb qaadanayo Cabdi Fataax Macalin Nuur, taliyaha saldhigga degmada Baardheere. ugu horreyn taliya ku soo dhawow barnaamijka Samwade ee Radio Markabley. bismillaah, waa ku dhawahay barnaamijka aad baad u mahadsantihiin.
barnaamijka sida aad maqlaysaba waxaan kaga hadlaynaa kooxda shabaab iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan dalalkii taliya iyo qaraxyadii waa la iskala soo tegay dadka ay go'doominayaan oo wadooyinka ay ka xireen taasi oo saameyn ku yeelatay beeraleyda iyo xoolo dhaqatada bal maxay kula muuqataa arrintaas bismillah dilalka iyo qaraxyada shabaab weligoodba ay wadeen way ku wadeen barnaamijkan wada xirka iyo go'doominta shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan beeraleyda iyo xoolo dhaqatada iyo magaalooyinka naftigooda ay go'doomiyaan iyo tuulooyinka xaafad bay dadku u go'doomiyaan taasoo macnaheedu yahay inta dilka ka badbaado iyo qaraxa in ay iyaguna ay u dilaan macluum iyo dhibaato wayna wadaan waa barnaamijka shabaab sidoodaba ay ku shaqeeyaan waa hadafka ugu weyn oo shabaab ay wadaan waxa weeye dhibaateynta ummadda Soomaaliyeed marka way wadaan waa shacabkuna uu arkaa waana aragnaa anaga waxyaabaha ugu kalifay aan la dagaalano oo aan dagaalkooda hal iyo habeen ugu taaganahay waa inaan ka dulqaadno dhibaatadaas ba'an ee shacabka Soomaaliyeed ay ku hayaan sidoo kale Sheekh Bishaar barnaamijka wada la socotay dhibaatada al-shabaab ay ku hayaan dilka iyo qaraxyada markii laga soo tago wadooyinka ay dadkii ka xireen oo go'doon ay geliyeen taasi oo noloshooda xitaa dhibaato ay ku ah haddaba sidee loo arkaa dhibaatada dhaqaale ee dalka iyo dadka ay ku hayaan argagixisada al-shabaab bismillah alhamdulillah rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam ama ba'du haddii aan kaaga jawaabo sida dhibaatooyinka ay ku hayaan ay u saameeyeen dadka si weyn bay u saameeyeen xoolo dhaqatada ay saameeyeen beeraleyda ay saameeyeen ganacsiga ay saameeyeen cid kasta oo shacab ah oo danahooda qabsanaysay ay saameeyeen sababtoo ah beeraleyda waxay xayireen wadooyinkii ay ku safarsanahayeen oo soo beerahooda waxa laga soo go'ay oo liinta ay kamid tahay waxaa jirtay liinta gobolkan hadda degmada Baardheer oo kale Jubbaland wabigan Jubba gaararkiisu liinta lacag yeelatay si fiican baa loo tabcaday dadkii 6 sano ay barbaarinayeen liinta marka intay u soo go'day labada safar oo koobaad la safriyay oo lacag lagu helay ayaga baa caqabad ku noqday oo hor istaagay ayaga oo cid ay u danaynayaan cid ay ka maaragtay mashruucan liinta ay ku hortaagan yihiin aan la aqoonin isbaar ay u dhigteen oo liintii way joojiyeen wadooyinka hadda waxay dadkii liinta ay u baxday oo 6 sano qarash kaga baxay oo barbaarinayay inay hadda dib u qardayaan liintii oo ay beerta oo daga dhigaan yay maraysaa waxa kale oo ay dhibaato ku hayaan dadkii beeraleyda ah oo beeraha caadiga ah oo adablaha ah oo sida hadda midda waraabka ama ahane lahaa qofkii beeraleyda ah oo baahana oo 3 sano abaarta soo maray markuu Ilaahay roob ka siiyay oo beertiisa inuu abuurta ku talagalay asagoo abuurka wata waxa la yiraahdaa halkaas waxaad dhigtaa lacag $20 inta aan beerta abuurka ku ridin hadii kala beertaada ma abuuraysid qof saaxiib tabar ah oo beeraley ah $20 oo uu bixiyo oo laaluush ah oo beerta uu abuurto uu ku bixiyo ma hayo dad badan bay saas aga baaqsadeen beerihii waxay dhibaato ku hayaan xoololeyda maalin walba ag taagan yihiin sakawaad keen bay leeyihiin infaaq keen bay leeyihiin qidmatu amni keen bay leeyihiin wax 12 magac ay u bixinayaan bay maalin walba la ag taagan yihiin agoon ma dhaafaan masaakiin ma dhaafaan danyar ma dhaafaan dad barakacayaal ah oo baahan ma dhaafaan wax ay dhaafayaan male marka dhibaatada intaas leeg bay shacabka ku hayaan waan garanay markii laga soo tago dilka iyo qaraxyada dadka ay u geysan jireen gudoomiye waxa jirta in wadooyinka ay xireen taasi oo saameyn ku yeelatay beeraleyda iyo xoolo dhaqatada bal arintaasi sidee in la muuqataa horta anaga say noola muuqato haddii aan dareenkana ka hadal aad iyo aad baan uga xunaa had iyo jeerna waxaanu ku dhiirigelinaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabku intii ay si toos ah u wada shaqeeyaan oo u midoobaan in ay dadka shacabka oo cinqaabti Ilaahay mid aan ahayn cinqaaban ee bini aadan cinqaabay in ay horta ka dulqaadaan waana wax cad in ay
xireen dhammaan agabyadii dadka xoolo dhaqatada ama ha ahaado ama beeraley ha ahaado ama dadka macnaha burqmaalka ha ahaadeen dhammaan in ay wax badan ka bedeleen nolosha bini'aadanka waa wax cad oo meesha ku jirta waa tahay dhibka aad soo sheegtay waxaa saameyn ku yeelatay baar dheer oo kaleeto in inta badan boqolkiiba 90 la dhihi karaa in beerihii liintii la saaray haddana wadda ay martay aysan jirin ayaga ay cunaqabateen saareen qasaaraha ka soo beeraleyda soo gaaray maxaad ku qiimeyn kartaa maxaysa uga golleeyeen ayaga in dadkii wax soo saaranayay oo liinta oo kaleeto lacag badan ka helayay sanadii horeeto balse hadda ay cunaqabateen maxay ka faa'iideen al-shabaab wallaahi waxay ka faa'iidayaan lama yaqaano dadkaas beeraleyda ana qasaarada soo gaartay qasaaraha hadda anaga aan soo koobi karna ma ahan sababtoo ah nin liinta 6 sano ay ku dhashaa oo miro ku keenta nin 2,000 geed beer ku abuuray oo waraabinayay 6 sano intaas qarash iga baxayay xilligii qarashkii uu soo celin lahayd laga joojiyay ganacsigii ayadii ay miro iska dhalayso iska daadinayso ay dhulka daadsan yihiin codka gadanaysana aan la arag geedkii uu dhaqaaleynayay 6 sano ay ku qasbayso in uu maaragtay raashin iyo waxaas ku abuurto geedkii uu dib u qardeeyo oo masaar intuu qaato uu oodo sida geedihii duurka ka baxay uu beerta ood aga dhigo dad saas arintaas sameeyay baa jiro oo beeraley ah marka dhibaatada intaas leeg dhibaatada hadda anaga aan soo koobayna ma ahan geedaha noocaas oo kala oo la abuuro oo sida liinta iyo cambaha iyo geedaha geed miroodka ah qiimay ku fadhiyaan oo lacag qarashay ku fadhiyaan oo xoolaha la dhaqdo kala weeyo waa ka qiimo badan yihiin waa hanti ma guurta hantida ayada ahayd oo maaragtay aan la qiyaasi karin bay caqabad ku noqdeen wax ayaga ay ka faa'iidayaan ma naqaan waxa weeye marka waa dadka inay dhibaan lagu saladay dadka lagu saladay dhibaato waxaan ahayn ay ka shaqeynayaan lama arko wax hadda dheef ah ayaga ka soo galaysa in ay dadka ganacsigooda ka hor istaagaan ma garanayn waa tahay shacabka awal way dilayeen oo qaraxyo qaar ku laayaan qaar gowracaan iyo qaar xabad ku dilaanba hadda maxay uga gol leeyihiin ayaad isleedahay haddana inay dadka cunaqabateen ugu daraan maxayse ka faa'iidayaan ayaga waxay ka faa'iidayaan dhibaatadii shacabka ay ku hayeen bay sii ziyaadinayaan si qofkii badbaado oo dib iyo qanax ka badbaado meeshiisa asagoo aysan iyaga u tagin ay xaqkiisa ugu cunaqabateeyaan oo ugu dhibaateeyaan oo macamuul iyo dhibaato iyo xoolihii in qofkii dhaqan waayo xoolihii naga baado qofkii is yiraahdo beerta oo baad naga qaado markuu beerta soo goosto oo meel uu iibgeeyo iyo meel uu geeyo midna ay sijirin oo marka ku kalifayso qofkii inuu niyad jabo mar haddii baad naga qaadayo haddii wixii soo baxana meel uu geeyo uu sijirin oo beertii haddaan ku baaba'ayaan soo ku hayo marka waa dhibaateyntii bay sii kordhiyeen si dadka ay xanuunka u wada dareemaan oo qaraxa iyo dilka bas aan loo dareemin dhibaatada meel walba ay u gaarto guri walba iyo qoys walba marka faa'iido maxaa ugu jira leeyahay dadkii hadee wadooyin ka xirayaan oo dilka iyo qaraxyada ay u sii dheer yihiin al-shabaab maxay ka faa'iidayaan in dadka ay cunaqabateeyaan bismillaahir rahmaanir rahiim wala awal hadda ka hor walaal sida loo kaga qaaday barnaamijka shabaab fikirkan ayagu ma leh fikirkan waxa iskala dad curyaamin umada Soomaaliyeed ugu talagashay inay curyaabiyaan oo xaq si qaab kasta lagu la dagaalamo umada Soomaaliyeed ama muslimiinta ba iskala waa fikir ka duwan fikirka hadda ayagu ay ku jireen waa fikir ka sareeyo maskax lagu soo sheegay weeye marka ayaga u kala qaybsan saddex qaybood u qaybsan qaar ay wixii loo sheegay ay ka dhab tahay iyo qaar wax loo soo sheegay oo la yiri adigu mabda'an hirgeliya oo mabda'an diinta ah wax ka jira ma aha aan ku wada shaqaysanay adigu hirgeliya intaas oo ku qaata lacag intaas qofka ay dilaanba percentage u saaran tahay lacag qofkii ay wada ka xira wada kasto u xirana ayada lacag gaar ay ku qaataan laba qaybood Soomaa qaybta saddexaad waa kuwan raacsan oo u dhaxay ku walaarsan mujaahidka ama mujaahideen horta madhaba mase waa wax waa ku qaybaha soo dhiibtay iyo u badan mase waa wax nala ku shubay barnaamijka aan waliba fahansaneen ba waxa ay ku shaqeynayaan marka dadka shacabka dhibaato un ba ku haysata markasta ama wadooyin ha laga xiro ama duuyaha laga dhaco marka dadka shacabka markasta waa dhibayn mar haddii dilkii iyo qaraxii iyo
laga soo tagay haddana dadka noloshoodii iyo waxay quudan lahaayeen carqalato intaas la eg lagu sameeyey maxaa la gudboon marka dadka shacabka Soomaaliyeed dadka shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboon inay iska dhiciyaan dawladooda ay kaashadaan dadka ayaga la diriraya ay kaashadaan ayaga laftooda ay la diriraan sababtoo ah ninka haddii uu noloshaada u soo dhigto jiritaankaada u soo dhigto xorriyadaada u soo dhigto Soomaaliya 60kii bay xorowday gumaysi baan soo marnay gumaysi marka hadda qarsoon oo aan maaragtay aan dadka loo sheegaynin gumaysiga hore gumaysi wuxuu ahaa dadka loo sheegayo la yaqaan oo de gumaystiyaal baan haysto yaa la dhihi jiray gumaysi aan dadka loo sheegaynin bay noqdeen al-shabaab dad cunsuri ahana soo diray oo ka dambeeyo oo shisheeya in shacabka Soomaaliyeed lagu gumaystaana loogu talagalay gumaysi intaas ka badanna bini aadam ma qaadan karo codsan loo gumaystay ma garanayno dad beerahoodii lagu haysto xoolahoodii lagu haysto guryahoodii lagu haysto qaraxa iyo dilka iyo dhibaatada ay dheeraad tahay inay iska celiyaan baa u fiican sababtoo ah waxa la yiri nin idaa kugu daaya aan isdaynin kugu daaya hadii dhiiga faraha la wada galo la iska celiyo oo siday dadka u dilayaan loo dilo inay saan dhaaman lahaayeen xoogaa wax fara badan ka tagi lahaayeen ama ay dadkooda soo raaci lahaayeen baa laga yaabaa markii laga amar qaato waa waxa loo fududeeyay inay hawshooda sii wataan baa loo fududeeyay marna shacabka Soomaaliyeed arintaas inay qaataan ama ay ka amar qaataan al-shabaab uguma baaqahayo waxaan ugu baaqayaa inay iska celiyaan gudoomiye waxa tahay fankii iyo suugaantii nimankano dilkii iyo qaraxyadii inay dadka noloshooda hadana ay go'doomiyaan ay ugu dareen maxaa la haboon ciidanka xooga ama dawladda kaliya wax kama qaban karaan shacabka inay iskaashadaan yaa loo baahan yahay maxaa shacabka looga baahan yahay in nimankan laga dulqaado door intee la eeg ayaa ka qaadan kartaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh walaal horta wabaasan tahay ciidanka xooga dalka horta iyo dawladdu waa gurigii fulinta iyo xoogii dalka intaas kaliya marka shabaab waxa kama qaban karaan runta marka laga hadlo ninka shabaabka gurigiisa dariska la ah midka caanaha ay ka cabayaan oo khasabka ku siinaya ayagoo aan rabitaan ka haya nimankaas ay sanahaan waxay wax u siinayaan qasabka wax ku siinaya iyo midka ay agdagan yihiin haddii aan laga helin muwaafaqo toos ah oo ay dadku ku wada shaqeeyaan oo ciidankii iyo dawladdii ay kala shaqeeyaan sidii dadka Soomaaliyeed looga dulqaadi lahaa gumaadka had iyo jeer ku socda dadka oo dawladii iyo dalaggiiba curyaamiyay waxa kaliya oo ku hirgeli kara shacabka iyo ciidanka xogga dadka Soomaaliyeed iyo golaha fulinta oo xukuumadda dawladda madaxda ugu sareeyay madaxda intaas oo ah muwaafaqo waxay hadda siiba ka faa'iideysanayaan xogga dalka uma midaysna qowad calamadii baa farabatay wixii baa magaciisa wali dadka shacabka isku fakar iyo isku miskax wali wax waa ka dhima fakarka dadka marka waxaan oran karaa sida deela rabo in laga gudbo curyaaminta dadka shacabka lagu hayo oo dawladii lagu hayo oo dalagii lagu hayo waxaan oran karaa shacabka Soomaaliyeed ha midoobeen bas ciidamada xoogga dadka Soomaaliyeedna hala shaqeeyaan iyo dawladooda assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waa tahay haddana iyaga oo wadooyinka xiran yihiin oo dadkii la go'doomiyay cashuur ayaa laga qaadayaa waxa iyaga khidmad u yaqaanaan oo baada ayaa laga qaadayaa wadooyinka way xiran yihiin bal arintaasi saameyn dhaqaale intee la eeg ayay ku yeelanaysaa ayaa isleedahay dadka deegaanadooda ku nool iyo dadka deegaanadooda aan ku nooleen oo meelaha dawladda jooga haddana go'doonsan oo wadooyinka ay ka xirteen bismillaah waxa weeye dhibaatooyin dhaqaale oo aad u ba'an bay ku leedahay waxaana weeye inta badbaaday oo xoolaha iyo beeraha wixii soo go'ay iyo qofkii wax tabcan ahaa inta ay cuna qabateeyeen ma ahan in kasta haddana meesha ay joogaan inay baad uga qaadaan wax iyaga ay biishaan ay ka dhigaan waxa ay rabaan marka waa dhibaato aad u weyn oo shacabka Soomaaliyeed aan leenahay ilaahay ha ka dulqaado haddana loo baahan yahay in la iska dulqaado oo loo midoobo loo istaago si wada jir ah la isaga dulqaado cadawga Soomaaliyeed waxa la isku wada waafaqsan yahay adiga iyo Maxamed Axmed
gudoomiyaha fanka in dadkan la iska dulqaado haddana dadka waa la dilaya qaraxaya lala beegsanaya waan la cunaqabatay xoolahooda baad ayaa loo qaadanayaa ma isleedahay dadka Soomaaliyeed wali kuma baraarugsana si dhab ah in nimankan loola dagaalamo aad oo weyn anagu maalin kasta waan ku baaqnaa in dadkan iska dulqaado oo cadawgan Soomaaliyeed dadkan Soomaaliyeed shacabka ah nugulka iyo nooc walba leh dhibaateynaya in dadku ay u istaagaan u midoobaan iska dhiciyaan maalin walba ku wacyigelina xogaa waxaad moodaa dadkii inay soo yeera fahmayaan laakiin weli aad sidii la rabay aan loo fahansanayn oo aan loogu diyaarsanayn in la iska dulqaado la iska dhiciyo sideedana qofku iddaa kuguma daaye waa la iska dhiciyaayo shantaada la iska dhiciyaa marka shacabka Soomaaliyeed waxaan u baaqiyaa in ay iska dhiciyaan cadawgan waa hadda waa weermeen awoodoodii badnayd shacabka ku soo joosteen oo aad u cadaadinayaan marka inta ayaan dhimaan waxaan leeyahay hanoo midooba hanoo istaago aan la iska dulqaado idinka ka ciidan ahaan ma isleedihiin naftiina waad ka gaabiseen oo marka aad magaalo tagtaan in magaalada gudaheeda aad iska joogtaan oo banaanka ay u bixino tuulooyinka howlgaleeda ka sameyn idinka naftiina nimankan waa u fadhiisateen ma la isdhihi karaa ka ciidan ahaan maadaama aan isla qirsanahay in dhibaato ba'an ay dadka ku hayaan ma isma dhihi karo sababtu waxa weeye ciidanka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo maamul goboleedyada iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada ciidamadooda meel kasta ay joogaan maalin kasta way la dirirayaan duurka aan ugu baxaya waa maxaan ku yiraahdaa haddana qorshayaasha dagaalka waa wax oo kor ka yimaado oo qorshaysan oo haddii ilaahay idmo hadda waxaan sugaynaa in hawlgal ballaaran oo dhammaan Soomaaliya looga ciribtirayo inuu bilaaban doono sida aan madaxda ka filayn haddii ilaahay idmo Sheekh Bashar culumadana waa ka mid tahay in dadka la dilo la dhaco xoolahooda boob loo qaato haddana naftoodii iyo noloshoodii la cunaqabatay diinta islaamka waxay ka qabtaa diinta islaamka nahyi bay ka soo arooray in aan qofka islaamka ah dhiigiisa la banaysanin maalkiisa la banaysanin sharafkiisa iyo cizigiisa aan la banaysanin oo intaba ay xaraan ka yihiin diinta islaamka aayadaha quraanka iyo xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam intaba waa lagu cadeeyay marka nimankan waxa weeye niman uu rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam hore iga digay waa niman khawaarij ah khawaarijna inay soo bixi doonaan waa la sheegay rasuulkeena waa sheegay sallallahu alayhi wasallam niman diin sheeganayo oo dadka dhiigiisa banaysanayo waxay dilaan baa la yiri dadku oo dili doonaan baa la yiri dadka ahlu kitaabka ah oo ahlu tawxiidka ay dilayaan waxayna ka tagayaan baa la yiri dadka ahlu awthaanka ah oo sanamyada caabuday ka tagayaan marka saas ay u cadahay marka nimankan waa niman horay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam ooga digay waa nimankii rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam yiri duubaa liman qatala u qataluhu ninkii ama dila ama ay dilaan bay laanta janno u sugnaatay duubaa intuu rasuulkeena yiri sallallahu alayhi wasallam waxaan soo jeedinayaa marka nimankan in la iska celiyo oo jihaadkii ayaga sheegayaan ayagoo xaq ku yahay lagu jihaado oo lala jihaado waa tahay baraleedii waan ka soo hadalnay iyo dadkan dhibaateynayaan ay diinta islaamka waxay ka qabto dhanka xoolo dhaqatada bal saameyn inta leegay ayagana ku hayaan isleedahay saameyn weyn bay ku hayaan saameyn weyn bay ku leeyihiin sababtoo ah maalin walba waxay kor taagan yihiin xoolahooda bay tirinayaan ay dhex taagan yihiin runtiina waxa ayaga qaadayaan saka ma ahan waa in la siiyana ma banaano waxa ayaga ay qaateen in loo niyaado sakana ma banaano sakaan qaadaynaa bay leeyihiin oo maalin walba dadka xoolahooda tirinayaan ay dhex taagan yihiin sababtoo ah dawlad islaami ah oo dhisan oo dalkii camimtay oo dalkii ma ahan cadaalad ku maamusho koox wadooyinka taagan oo qowleysata weeye sakadana waxay ka mid tahay shanta rukni oo tiirarka islaamka ay ka mid tahay qofka islaamka ana asagay ku waajibtay inuu iska bixiyana waajib ay ku noqotay 8 sifaana loogu talagalay oo dadka ka mid ah in la siiyo 8dii ayaga ka mid ma aha 8dii wax ka dad ka mid ana ma siinayaan waa wax ayaga ay cunahayaan ama ay dadka qarax ugu sameynayaan
waxay qaadaan marka saka ma aha maalin walbana waa kor taagan yihiin xoolii bay tirinayaan oo sakan ka qaadaynaa bay leeyihiin taas kuma daayaan haddana wax kale oo infaaq iyo macad iyo dadka caruurtoodii bay usoo dhigteen dadkii xoolo dhaqataa rumiga inta la dul tagaa ilmahoodii mid ama laba saddex keena la leeyahay oo mucaskara iyo qaraxyo iyo balaayo sida la soo qarxay la barayaa ayagoo u sheegaya macad baan ku geynaa ilmihii wax baan ku baraynaa qarashkii bay haddana dib ugu soo noqonayaan ninka caruurta laga waday baa la leeyahay kaale qarashkeen macad baa lagu bixinayaa infaaq waxa la yiraahdaa lagu bixinayaa sakaa la rabaa kama faaruqaan dadka reer miyiga ah oo dhibaataysan oo deymaha qabo oo ayaga waxoodii aysan ku filnayn maadaama dawlad caawinayso oo dhaxa oo rasmi aysan helin oo 27 sano soo dhaafnay dalka burbur uu ahaa burburkii dadka iga faa'iideysteen wax ay dadka u soo kordhiyaan male ayagina waa dhibaateynayaan oo dadka xoolahoodii bay maalin walba keen 2 3 keen 4 keen ku hayaan dadka xoolahooda buug ugu qoran yihiin oo qof walba intii neefa u joogtay yaqaanaan waa u biltiriyaan oo in walba nimay 2 bilood moogyihiin male 3 bilood nimay moogyihiin male bil bay ka dhigteen dadkii bay biishaan dhibaatada intaas leeg bay xoolihii ku qabtaa ugu dambeyn waxaan jeclahay maadaama fankii suugaanta ay qaabilsan tahay wax ummadda aad ku wacyigelisana ama dadkan waxay yihiin al-shabaab kooxda argagixisada wax tix ama gabay aad tirisan ma jirtaan waa badan tahay halkaan hadda laguma soo koobi karo oo waraysi aan ahayn oo barnaamijkaas aan uga hadlayno qisooyin badan baa jira niman iyo qarnimada oo afka soo qarsaday oo ku qaraabta diinkooda shacabkana qarxinayo haddaad qaranka dumiseen intaad qarax bilowdeen ma qaxootinimada shacabkana loo qara barnaamijyo badan oo aan ka diyaarnay baa jiray marka waraysi aan ahayn oo barnaamijkaas kaliya ku saabsan in aad naga qaadaan baan rajaynayaa insha Allah ugu dambeyn adigoo ka faa'iideysanaya fursadda radio Markabley iyo barnaamijka Samawadaba dhageystayaasha ama shacabka ku dhageysanayo iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatada faraha badan kala kulmayo nimankan argagixisada maxaad baaqo u diraysaa waxa baaqo u dirayaa markasta aan ku celcelinaa cadawgan Soomaaliya hagaajiyay naga reebay dunida inteeda kaneeto ubadkayagi iyo dadkayagi dhibaateen iyo maxaan ku inaadaa hagardaameyn iyo hormarnaanta ku kanifayo in la iska celiyo la isaga celiyo dawladda iyo ciidamada dawladda hanaga celiyaan laga qaadana kaliya aan dhihin dhammaan ummadda Soomaaliyeed qof weyn iyo qof yar rag iyo dumar culamo iyo caamo qayb macnaha kasta oo bulshadu ay leedahay in inta la isku duumo geed kasta oo hoos galaan iyo guri kasta oo galaan iyo qof kasta oo ay isdhihi lahaayeen ku gabo uu dagaalka loo midoobo gacmaha la isku qabsado la iskana dulqaado adiga mudan ugu dambeyn Sheekh Ibrahim maxaad ugu baaqaysaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhageysanayo maadaama culimadii aad ka mid tahay dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa nimankan كل إن شاء الله تعالى مردو وين فاروق دونان ذلك الدولة ذلك هذا الصعود إن شاء الله تعالى وين فاروق دونان قلق استوى بعض الآن هذه مرنا واد دمان مرنا واسوا قران هذا حل يعني مرك دم الهايين ويا دمسكو دي واسود ودي ودميان حنقول باقي يا مركها إن الإسرائيلية أو الإسكالية أو الله جان سمين الإسكالية أساسا وباقها أمد الصوماليات ويدقي سنيس هذا مدن وان كعمه وقتك او انها او يساء قيادة قيمه قدرينك مدن ودعنا برامج كي سموده اي عاوة انتاسي ايان كسو ادميرين لا تاني انت برامج نوعا وفرد كل منو قول ايو قبنمو